haddii aad guulaysato xitaa qaladaadkaagu waxa ay noqonayaan halyeynimadaada. halyeynimo, ninkarnimo iyo geesinimo. laakiin haddii aad guuldaraysato qaladaadkaagu waxa ay noqonayaan daciifnimadaada. qof kasta waxa uu leeyahay qaladaad, qof kastana waxa uu leeyahay cillado, qof kastana waxa uu leeyahay dhibaatooyin iyo problem isaga u gaar ahi. dadku in yar ayaa ku dhagaysan doono haddii aadan guulaysan. haddii noloshu heer sare aadan ka joogin, waa haddii waqtiga iyo waayuhu aysan ku saacidin. maalinta aad guulaysato, dad badan oo shalay ku dhaleeceyn jiray, dad badan oo ku inkiri jiray, dad badan oo garab, hiil iyo hoo aanan ku siin jirin, markaad guul gaadho ayaa kuu sacabtumaya. dad badan oon garab iyo hiil toona ku ahayn ayaa garab iyo hiil kuu noqon doona. waxayna kugu oran doonaan, waaw, waxaad tahay guulayste, waxaad tahay halyeey, waxaad tahay ninkarmeed, erayada iyo kuwo kaloo la micnaa. laakiin maya, ma ahi ninkarmeed, ma ahi halyeey, laakiin waxaan ahay maquuste. waxaan ahay midaanan ka quusan inuu gaadho guul. waxaan ahay mid jecel inuu guusha ka gungaadho. adadkaysi iyo samirna waayaha dunida uu lahaado. mahadhooyinkii erayadii xumaa ee aad igu oran jidhay, erayadii qallifsanaa, erayadii dhaawaca lahaa ee aad igu warmayn jirtay, dhagahaygana ku soo dhici jiray, maalin qura qalbigayga ma aysan taaban. keliya waxaa ii muuqday hadafkayga inaan ka quusan si aan guul u gaadho. ogow, noloshaadu guul waad gaadhaysaa maalin maalmaha ka mid ah. waxaan ku leeyahay never give up, never give up. weligaa ha quusan, weligaa ha quusan, weligaa ha rajo dhigin. dadaal gaadhi doonta.